shan xeer oo nin kasta oo stylish ay tahay in uu sameeyo ama inuu raaco. Shanta xeer maxay yihiin? Waa Motinho Lifestyle-ka soo dhawaada. Style-ka malabisku ma kaliya inaan dhar xirato, waa luqad, waa lifestyle, waa hadal, waa muuqaal. Xeerarkan ama shuruudahanna waxay ka dhigayaan labiskaaga runtii mid kalsoonidiisu sareyso, runtii adiga muuqaalkaagana kor u qaadi karaa. Qodobka ugu horeeya, labisku leeg waa wax kasta. runtii labis kasta oo aad xidhanayso waxa weeye muhiimad u tahay in uu ku leekaado. Tusaale, haddii aad maanta surwaal xidhanayso, at least waa in surwaalkaasi cabirkaaga dhexda ka leeyahay, soo kale dharka ka leeyahay. Soo kale haddii aad jacket xidhanayso inuu jacketka ku leeyahay, haddii aad shaati iibsanaysidna soo kale shaati ku leeyahay iibsato. runtii waxyaabahan waxay keenayaan markaa in labiskaaga uu sida ugu wanaagsan jirkaaga ugu soo baxo. oo waxa dhici karta dadka qaar labisyada marka ay xidhaan dharka waaweyn laga yaabo in style-kiisii uu hoos u dhigo, soo kale shape-kiisii uu bedelo, soo kalena miisaan uu ku daro. soo markaas isku day inaad ilaaliso oo haddii aad suit jacket iibsanayso oo kale inaad ka eegto garbaha inuu garabka ka leeyahay. haddii aad surwaal iibsanaysidna at least inuu kabta dusheeda dul istaago oo uu soo dhiibsanaado. haddii aad shaar iibsanaysidna oo kalena aanu dhaafin maxaa la yiraahdaa slippers-ka. qodobka labaad, tayada ayaa ka wanaagsan tirada. Quality over quantity. So isku day marka aad iibsanayso alaab inaad raacin trendiska ama waxa suuqa ka socda maalin kasta. laga yaabaa inaanay kugu soo baxayn. dadka kale adiga waxba kaamay gelin, adiga keeba kugu soo baxaya ayaa dantaada. So labis kasta oo suuqa ku aragto laga yaabaa inaanu jirkaaga ku soo baxin. marka koowaad ugu labisay jirkaaga ku soo baxaya dawada raac. runtii wax badan ayay ka bedelayaan qaab dhismeedkaaga. waana sharci wanaagsan oo aad raaci karto. haddii trendiska aad raacdana uu kugu soo baxayana kaba wanaagsan. sharciga saddexaad, grooming-ka waa lama huraan. runtii inaad daryeesho timahaaga, jirkaaga, labiskaaga, wax kasta oo adiga kugu saabsan. runtii aad bay wanaagsan tahay oo haysato cadar wanaagsan oo runtii kugu soo baxay. tusaalahaan kale haddii side ay timu kugu yara baxaan oo kale inaad iibsato bahashan yar oo kale oo leh ilkihii 1 2 3 4ka oo adigu isku xiri karayso. cadarku sidoo kale waa lama huraan. sharciga afraad, accessories-ka. runtii accessories waa lama huraan inaad haysato tie oo u xiran karto goobaha muhiimka iyo xilliyada muhiimka. sidoo kale inaad saacad haysato oo runtii labiskaaga dhamaystiraysa. sidoo kale inaad haysato sunglass oo muraayad oo runtii ka anfacaysa inaad xilliyada qaar xidhato. sidoo kale shandadan kaarka lagu rito kale oo iyadna aad ku anfacaysa. ugu dambeynta qodobka u dambeeyo inaad raacdo kalsoonidaada. runtii kalsoonida wax kasta oo loo dhigaa ma jirto. inaad isku kalsoonaato runtii wax badan ay ka bedelaysaa. raadina loodaga hal xeer oo labiska oo aad jeceshahay in la raaco ama ay tahay in dadka oo dhan isticmaalaan.